نبي reer bani Israa'iil dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaas nabiga uu sheegay yiraahdeen yaa nabiy allah salaadii casar baa taagan nabigii waxa la yiri fartiisu ku fiiqay cad salaad ugu fiiqay waa nabi ilaahay doorto rasuula markaas uu adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaana markiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halka noo joog buri ilaa aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guulaysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay gooshii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nabigii ku yiri hadda inoo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaa salaada imika tukanaynaa buu yiri marka salaadii tukadeen buu yiri haddaba imika iska soco iska dhac buu ka yiri horumarka caalamku ma gaadhay imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliya horumaray birahan wax duubaya horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta kaligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wicinaaya markaasuu magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tagay buu rasuulku yiri markaasuu gari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yiri wallahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga ku keenay wuxuu haddaad weydiisay beerteedu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiya qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yiri حديثاس وهو صحيح وبني إسرائيل أي نبي نوغا شيغay قصص صحيحة محو كوغو شيغay نبي محمد عليه الصلاة والسلام waxa lagu baraarujinaya haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adiga iyo ilaahay xiriirkayni dhaxaya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyada iyo aakhiro waxba ka xumaan maayaan inaka waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajino lacag wax walba inaan ku hagaajino awood wax walba inaan ku hagaajino qabiil wax walba inaan ku hagaajino aqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo aakhiro labadaba wuxuu ilaahay kugu hagaajinaya waa diin waman araada al-aakhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaa'ika kana sa'yuhum mashkura sa'i balla sheega sa'i مشكور إلهي أسعي لكن بيرتيسا انت كالصوغودا أيو حقوق العباد بكيلا لي بس حقي أضمه كلها يعني وصدقات كوكالو ريبن إسرائيل أيا مدكالو ريبن إسرائيل كدل بالدين دين كن درهم كن دينار لعقتها هنكو أماهية حديث كنا سوا صحيح هنكو أماهية أيام مرخاتية مرقاس الإلهي بأنه مرق أبو كير كفى بالله شهيد أبو كير مرقاسه ورمتاس هداد دي ما تتهدنا والدين وياني أيام نرى على العقتي دي كفى بالله وكيلا إلهي بأنه راعي ويقى وكيل ابنه مرقاسه والله ورمتاس lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad dad u dhaxaysa maalintii kan deynka loo soo celinayay dhinaca buu soo joogsaday kii kalena qarkii kalu joogaa doontii uu raaci lahaa maalinta maysan iman buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam kolkay gabalku sii dhacay hadee toole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dilaaciyay warqad buu ku qoray
yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalinta lacagta uu idayminayay marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancaye ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayo la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey maro kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray masaafada inta udhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doono yeela waayo inamaa amruhu ida araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayda waxaa ka dhigan afday maxaa nolosha nagu adkeeya maanta qof kasta maanta la fadhiisoo muslima uu cabanayaa madaxdu way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiinta way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanayaa inankuu ka cabanayaa inanku uu cabanayaa aabbihii buu ka cabanayaa inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarkuu ka cabanayaa qaraabadu qaraabaday ka cabanaysaa qof kasta waraysa waa kaase wuxuu ku leeyahay xaqaygii baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tu'adduuna xaqa aladii calaykum watas'aluuna allaha aladii lakum baa nebigu saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga qaataanna bal ka warran markaa buu nebigu xaqay nagu leeyihiin ininku u gudo iska ilaaliya xaqiina ilahay baa ka qaadi doona buu rasuulku yidhi ninkan inuu xaqa iska ilaaliyo halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socotay iyo markab ayuu yidhi bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xaabaha uga dhigta dacaawa ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkiibuu u geeyey oo u jajabiyey warqaddii baa ka soo baxday oo kala furay lacagtoo sideediiya yaa soo gaadhsiiyey ilaahay baa soo gaadhsiiyey innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyadu ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa uuna ku socon jiray uuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta awaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla ka cabsi iyo diin iyo taqwad innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaadu manfacadeedu qabriga ku sug adduunyadan shaqa wax ku haysa shaqo waa ka dhallinyaradeenni badahay ku dhammaadeen badaha saxraagay ku dhammaadeen beri dambe labadii nin is arkeen uu ku soo bodo u calacalay iga raalli ahow maalintaa baddii waa nimiddo waxaan soo raacaan waayey hawalwelin hawalbahaarin ilaahay maragga aad ka dhigateed kafiilka aad ka dhigatay ayaa ammaanadii kaa soo gudayoo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxaa laynoogu sheegayaa qaar qur-aankaa ilaahay ku sheegay qaar nebi maxameda axaadiista saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxau nebigu inaga doonayaa oo nebigu inala doonayaa inaan noqonno kuwa rabbaaniyiina walaakin kunuu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo un aaminsan kaa maadi baa la dhaha maadi waxa uu arkayo buu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nebigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilaahay nebigu ay sheegeen marka inaan camalkeenna hagaajisanno adduunka laynoo keenay wallaahi camalka haddaan hagaajisanno nolosheenna ilaahay baa hagaajin cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayh maalintuu dhimanaya xoolihiisii oo dhan u bixiyey waxaa lagu uhi ciyaalkaagii waad kaga tegte faqri baad kaga tegte wuxuu uhi ciyaalkayga diin baan baray buui ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shareecadda islaamkaan baray
وحريرك إلهي بان بري دينتا أن بري هدي قرصدانا وصالحين صالحين تن إلهي باتولي يقول الرموه قاد جوغيا بما يقول عيال كيغا واجو إلهي بان بري إله غنيغا كحري يقول أوبت كيغا haddaan uga tago xoolo buuri dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timid xoolaha ay ku tumanayaan la oran maayo kulligood baa leeyahay maalintuu dhimanay waxba ugama tagin laakiin kulligood wada aqniya baa ilaahay ka dhigay kana diin baa la baray inaan ubadkeena diinta barno oo inaguna jirkeena diinta barna loo baahaya jirkeena xubnahan gacantu ahkaam bay leedahay dhagtu ahkaam bay leedahay ishani ahkaam bay leedahay arabku ahkaam buu leeyahay calooshu ahkaam bay leedahay waqtigaagu xukum buu leeyahay inakum maanta waxa leedahay dadku waqtiga aflagaadayaan maanta yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ba ilaahay ina aadan baa aflagaadeeyay oo waxay caayeen zamankay caayeen zamanka iga xun zamanka iga liita zamanka iga jeeda zamanka maanta aniga halka ay dhigay zamankay caayaan baa ilaahay yiri zamankuna waa aniga baa ilaahay yiri waqtigu waayo waa aniga baa ilaahay yiri uqallibu al-layla wan-nahaar maalinta iyo habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxaasoo dhan wuxuu ilaahay leeyahay waa aniga amarka ana iskale maalimna wax ka bedeli mayso habeen wax ka bedeli maayo afrika wax ka bedeli mayso Europa wax ka bedeli mayso lacag wax ka bedeli mayso faqriga wax ka bedeli maayo qabiil wax ka bedeli maayo qabiil hoosana wax ka naaqsi maayo ka wax waliba bedelay nidaamka gacanta ku hayo waa ilaahay inaan barano waa nagu waajib iimaanka barashadiisu ma waajiba mise waa sunna يا فرض عين على كل مسلم وياه إيمانك إلا برتا فرض عين وين على كل مسلم والشيء أقوه الرئي نبي محمد صحابته وبري وياه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بلا ذلك إيمانك أيام برني كدمنا قرآنك أيام نقول حقي ثم محيط شاقيسا تراخي زمنك إيمانك أي برتين iyo zamanka quraanka ay barteen farqi baa u dhaxeeya markaas iraada quraanka barashadiisa dambana iimaan baa nooga ziyaaday quraanka barashadiisa waa maxay quraanka ahkaamtii baa la socota salaadii soonkii zakadii sadaqadii xajkii amri bil ma'ruufkii dadna kadib iimaan baa nooga ziyaaday salaada iimaanka ziyadinaysa soonkii iimaanku ziyadinaya xajkii iimaanku ziyadinaya zakadu iimaanka ziyadinaysa sadaqadu iimaanka ziyadinaysa حقوق ابن آدم كل اسكا إلاليا إيمان كاقي دين تهديبه كو إلالينيسا لكن وحا صور المحاكو الرئيي نبي قول مدى الله ببري الله الله مركي برتين أمركين قاتان بقول بيرات ما انت دتك مسلمين تو إلهي معرفة دي سيدون قلبك قلن حدين قلبك معرفة أين امدقن وحضرك سوقفك سوق قرآن كي يقارنا وصلاة دينا أنتو كريم ما dhacdo kuwa maalin qaylayo iska barjeynaya waa kan jamaacadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u galay safiican bay noo soo dhaweeyeen BBC raadiyogan way baqtiyeen oo way dhageysteen markaan u yar dhameynay wacdigii aan idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeena mariyo neer raac mid baa gacanta taago yiri nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam ilaahi baa soo diray waxa lagu yiri namaad maqasheen buu markaasaan musno ku ila barjeenayay baa yiri warninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhageysta hay noo kordhiyo jaadka uu taqsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yiri maad maqasheen bal noo sheeg fadhakir inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar هذا الكاكا ورنا dadka waani baa nabiga laga yiri adu waaniyo baa tahay
diinta dadka qasab kaga dhigay ma tihin nabigii baa sida lagu yiri oo noo sheegteene qasab ha naga dhigine iska socda markaas kulligood yiraahdeen ikaas sheekhaygu waa nikaas shaydaan ba sheekhina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa أنا كنت جولة بري سعودنا بعدين نتجني الصومالي ولا نيكا والصومالي وأنا مال فديو خبر عباية وضنا ذا قال هذا مركز نتجني والسلام عليكم مركز عليكم السلام حاجات كتير ما دلش ما مسكيت بمشي السلام عليكم تندلي ذهب ونقول ما يضل كيان كيمنو قارة أفريقيا كيمنو إني كان نصاب وقنو المسكيت كان نور على دونه إنه مسكيت كعا diinta ayaa la baray ninka wiil diiba ma taqaanaan sawka ilaahay lima la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun baya nisakhrana wa ayatu dalilina yaak macluumaadku haya laakiin yaqiintii iimaanki ba daciifa markaas aan ku niri la bas نراح سلام وراح تم الراعي نراح جماعة بنتي كلا تصوص صلاة نراح إلهي فلق إنك سيدي ونقص الراح جماعة دي بقول لك إستي حبين كيبون الله سيحدي الصبح دي مركو كعي خمرة دي أي كبع دي وأركي مسكين لقد الإعلام أيوه وبو تليفون قالتوا وحيون أيام ماشن إكاني إيش يقول وانحدي به بوليس ما نقول يعني وضع كان هدي بوليس لقوقو يعني وخلاص ولا قول تقول مركزان اللي أرعبكم نقرر لها واسكسعون بس كسعون markii dambe rag inoo sheegan waxay nagu yiraahdeen ninka wadanka markuu soo galay caalim buu ahaa waliba masaajid wadanka ku yaalo imaamka ahaa bay nagu yiraahdeen maantana dariiqu khamriga ku cabaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummadu maanta iimaanka hoos u yaala iimaankeena aan kor soo qaadno u baahanahay markaas sida darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallahi wax walba way ka doorteen dan saacada gadanu maleewad يا مسوقا يا كلكم إير إن شاء الله إير إن شاء الله الله ينبركه صحابة الرسول كالدين تمركي دلال كوكوتي ما دنولا الشهادة وحكا سوى ظهرتا أبو سلامة مركو هجرونا يي حاسكي سيبا لغا الرابي وما جوكسن waxay ka dhigan tahay xaaskaaga iyo ilaahay nabiga kala dooro ilaahay nabigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisina tolkii baa la noqday isagiina madiinu jooga sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeen diin dartii Suhayb ar-Rumi markuu ka baxay magaalada Makka uu hijroonayay Quraysh baa dhaxda u gashay adoo sacluuq oo faqiira noo timiday adoo qaniya naga bixmaysid ama xoolaha halka dhig oo Muhammad Abu Fadhila ka daba tag ama lacagtaada hayso magaalada Makka ku noqo wuxuu yiri horta nin Rumi aan ahay buu haddaad idishaan ana waxba niga dili soo lacag ma rabtaan ha lacagteedii waa tan qaata intii kalena meel heblaay ku aasatay kala baxo qaata nabigayga haga daba tagay ii dhaafo buu waxa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisa oo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii oo dhan buu dhiibay wuxuu dariiqay banay haddaba rasuulkiiba ka daba tagayay su'aal laga yidhi waa kaas wadada mar madiina isagoona soo gaadhin ayaa quraanku soo degaya wa min an-nas man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardaatillah wallahu ra'uufun bil 'ibaad magaaladii madiina markuu soo galayna rasuulka ilaahay baa hortaagan oo leh rabiha al-bay'u ya aba yahya rabiha al-bay'u ya aba yahya ya aba yahya ganacsiga maanta ilaahay alla gashay waad ka macaashay baayac mushrika ilaahay alla gashay waad ka macaashay buu rasuulku leeyahay وصلي رسولك إسا لعقت يا إلهي رسولك إسا كلا دورو لعقت يا رسولك وحيك كلا دورنا ين إلهي رسولك إسا قادنا ين قبيلك يا دين الإسلام كلا دورنا تكي قاتل
هذا مستنه bahalka Soomaalidu ku dheeraysaa waa bahalka dalkeeni aan ku weynay ya Allah Mus'ab bin Umayr wad garanaysaan ilaah raali ka noqday muqri waa ninkii ugu horeeyay nabigu Madiina u soo diray weeyaan oo Quraanka bareeray Madiina iyadoo Madiina nabi Maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri diinta u galiyay buu ahaa ree Madiina indhahooga iyo ubadkooga Mus'ab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayay ayaa ku jira 70kii mushrikiinta dagaalka Badar lagu soo qabtay la soo xidhay yaana soo xidhay nin reer Madiina Ansaariya soo xidho haysta halka Abu Shifa Mus'ab nasaas uu dhex socdaa Ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii Madiina diinta gaarsiiyay weeyaan marka Abu Dul Maro saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku naasdaayay weeyaan walaal xarigu igu adkeeyay hayga dabciye ii shafaacad qaado ka dabci dhabuudi Mus'ab sidaan intuu eegay buudi ya akhal Ansaari walaalkayga Ansaariga reer Madiino marba nabigu haduu yiri nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaa buu nabigu yiri kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xariga ku adkay buu ka yiri walaalkay adiga ma habuura waa kaabud Ansaariga ka diintaan walaal ku nahay cid walba aniga iga dhow buu ka yiri xariga ku adkay buu waa gaal weeyaan Abu Sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisii Ramla bint Abi Sufyaan waa zawjadii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday oo hooda macay gogoshii nabiga inuu ku fadhiisto waa ka hoos qaad markaas uu aabo ma hal diintii nabi Maxamed ma halka bay ku gaarsiisay inaad aabahaagii ku dhalay gogosha aad ka qaado oo gogosha yar aad u ogolaan weydo waxay tiri may aabahay baa tahay gogosha nabi Maxamed waa gogol taahira adiguna mushrik nijaasa tahay bay ku tiri nijaasta gogosha nabiga u diidanahay bay ku tiri islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul yaa qiimo agtooda inakana maanta wada arkaysan xaalkeena inay diintu agteena qiimo yeelato ayaa doonaya ayaa u diyaar diinta ka shaqeyno marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo haruso waayo diintu adduunyada iyada ka raaci waxba ka raaci maayaan oo shay kasta oo maalkaaga waqtiga iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa mobilka yareed wadato Soomaad arkaysid ilman yar inuu qurrad ku xaquuqa madu ogolan muraayadaas musbar hadduu soo qado soo xaquuqa ka waran musbar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhex maraya bacdu sokorta ku sitay baad dalooshatay way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayb war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegan garanaynaa lana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sida waliba ininku waad naga fiicantihiin diintii baa maanta inaga daadanaysa inaan soo qabana soo maaha tama qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsanaa balligiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha Allah dhahada waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuulada dhigatana fasax bay ku jiraan Ramadaankiina waa laga baxay ijtimaaci Hargeysana 2 bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacada waxa la doonayaa Ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda Ilaahay dartii u bixiya la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah nabi guri markii Makka loo soo hijrooday buu nabigu yiri hijrada boo Makka laga hijroonaya way dhamaatay laakiin jihad iyo niyad baa jiray buu nabigu jihad iyo niyad hadii la inaga dalba diinta inaad u baxdaan oo baxbu rasuulku maanta waxa la dalbaya
إن كل جين أخيار يدل يري علماء عامة دين تدل كذا كعمها سوق بصنا ونول بمال جيسي نفتي وقت جيسة وإله درت وضح إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا يا ديار هاي قعدت ويا رواج وصلت الله أنا قعدت ما قصنا جبوتي لا تجي معي وين ولا قعدتين أساس ها هيا استاجد سو ما قرنا هي بلوعي بلهن لبا بلود أما أفر بلود أما أما أفرتن أي النيون يا إلهي درتين أنو بحو وان سين نيون يا وان سقريا هذه إلهي إدي بيرين وان بحيا هذا ظروفتي سامحي وإذن النية إلهي قريا نكيلو وأكون دعاء الناس ركع شركع ولا ليال شركع ولا ليال وخير وين خير بين لقم مخلص تاجا ولي إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا ما شاء الله هذا ولي إن شاء الله هل قاعد أحد يقول توصل بعدك ويريين أنت كعلي ولي هل قاعد يقول توصل نقدر برك ما شاء الله هاي يلا نقدر بدن أفرتني الله بلود هي هي أفر بلود بيش أصوص عطي لا بلا الضم لا اجتماع هرقيسة بلن ما هنا والنيد وين والنيد هذه لا يكوا فجينا وابحدي هذا ظروف تكون سامح وإذنا أجرك إلى يكون قريا وتجارة مع الله ويان من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة برسولك يري هيا والله نغفر حيا الله نغفر حيا كردية إن شاء الله ما تقولي ثمين dadkii qorayay waa laga batay ma sha Allah xaga damba meel la fadhiisto meel masaajid waa buuxa ما شاء الله halkiina fadhiista iska fadhiista bas nabiga ku salliya wala in qoray insha Allah soo man niyood wal wixii niyado gacanta taaga mar kale هذا هو وده تاجين بقى والله نقرأ إن شاء الله حاجة سنة كاميرا حاجة سنة قاعدة والنيونين إن شاء الله هبين دم جماعة هبين دم أنا مركز كجماعة كسوق قريب قلا اجتماعي هرجسنا ودويها وسبتمبر بسنة كان دي بالله الريحي إذا صوت ديارية جماعة عدد إلهي درت أسعد إني إيمان عينا النصرة هلا فايدس إن شاء الله آمين هذا هي وضد بدل بينو دعين ورود دعينا آمين هذا بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين